suuqan Ancelotti waxa uu muhiim u yahay bulshada labada degme ee Xamar Jajab iyo Waaberi kadib markii ay bulshada labada degme ay ku soo gudbiyeen barnaamijyada la tasha bulshadaada iyo la kulanka dadweynaha baahida ay u qabaan suuqan waxaana maanta xarig ka jiray gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Cumar Maxamed Cumar Filish isaga oo loo dhisay hab casri ah gudoomiyaha degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir waxa uu sheegay in bulshada degmadiisa ay sugayeen ka jawaabida baahidooda maantuna ay gudoomiyaha gobolka Banaadir ugu mahad celinayaan dhismaha loo dhisay suuqan runtii farxad ay u tahay reer Xamar Jajab maanta inay helaan xariga loogu jaro suuqa koowaad ama suuqa ugu horeeyay ee ay ka adeegan doonaan reer Xamar Jajab runtii farxad ay u tahay reer Xamar Jajab waxaan filayaa suuqiyo badan ay ka soo adeegan jireen haday noqoto suuqiyo degmooyin kale ku yaala laakiin maanta wixii ka bilowda waxay ka adeegan doonaan suuqa Ancelotti reer Xamar Jajab ayaguna waxaan ka codsanayaa inay suuqan ay gacanta ku hayaan oo u noqdo suuqooda ugu horeeyay mar waliba ay garab taagan yihiin ay ka adeegan doonaan insha Allah gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Cumar Maxamed Cumar Filish ayaa bulshada ku dhaqan labada degme ee Waaberi iyo Xamar Jajab ka dalbaday badqabka iyo ilaalinta suuqan maadaama nadaafadda suuqan hadda lagu dadaalay waxa uu dadweynaha kula dardaarmay in suuqan baratan uu la galo suuqyada kale ee ku yaala degmooyinka gobolka Banaadir Ancelotti يعني كوان وين وآد لوجا أديكتو أو سيدا السوق عن أعمرين هاي كدرن أسيقن أعمرن أيوة هاجري أنا عيالي يريرة أيان متقانا ألكان إماجر إنه أذيقنا لو كسود دريجر مركز سفي على أونغان بربركي أيو كدو مي جبي أنبا ولا دسي كدبنا مرولبا oo darxumaado waa la dayactirayay marka dib u dhiskii ugu dambeeyay ayaa maanta ay noo suura gashay inaan horena u dhagax dhigno haddana aan xarig jarno waxaa reer Xamar Jajab looga fadhiyaa marka oo maantii inaan mataqaanaa ay hortiina taagantihiin ay fursad ee tahay meeshu hadday fool xun tahay oo waddo laga soo galo ayaan lahayn oo daraagiistihiisu ay badan yahay qofkiisa daroogaysan oo badan tahay oo qofkii yimaad la furanayo waa laga kala carara dadka nabad ay rabaan meel nadiif ay rabaan meel dhalaalaysa ay rabaan waddadii laydin soo mari lahaa dhiiqa waay dhiiqada marka waad ogtihiin marar badana anaga aan maamulka gobolka Banaadir xooga saaray oo wadadii laga shaqeeyay oo meelo badan qashinka laga qaado laakiin haddana meelo gaar ah oo mataqaana qashinka lagu xafido ee baabuurta degmooyinka qashinka ka qaada oo ay ka qaado ma samaysanina adinka dhiiqada iyo wasaqda waxaa lagu soo daayaa laamiga qashinkana waxaa la dhigaa jidadka hadeertaanaan soo marnay jidad annagoo og weliba in maamulka degmadu dadaalo laakiin intaas ka badana uga fadhina Ibrahim Xaaji Yusuf warbaahinta gobolka Banaadir magaalada Muqdisho